السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جاي سود هذا وأنا وولادي جينا سود هذا channel كان هذا في الشارع وأنا welcome back with another video سود هذا فيديو عصب لما أنت يا channel كان مرتين نوعه ولالك عبد الرحمن وأنا عن كالجعل وبعثنا محمد وما أنت كسود هذا channel كان كسود أصحابنا محمد ما أنت لذا ودوها سعيد قالي ودوها ساحل معنا ماشي أنا من الجوجا وكنا شغل مجرتو والسو تاجي هاي وصاق عن عب ساحواي ما أنت كسجال حافظ على الجوجا مركا ما شاء الله سعيدك وسكشاحينا وسكع سريسنا يا وأجدين وحان هلنا لواتن يكون مالين أو أديك عيد لجبرين أو فصاحه إنكستو عن فيديو يال بدن أدنيس بيسين يتالنتيو إنكستو عن وحاوي ولاتن يكون مالين they are on the way wadada ku jiraan waxa way mashquulkeena badka oo anagii ilaa hurda deegaan lagu lahay oo hurda ah hadda hurdadii waa ka soo daragnay waxa rabnaa inaan challenge iyo video cusub aan soo gelino channelka anaga inaga wax nagu nahay inagana anaga wax nagu tihiin maanta waxa rabnaa inaan ka hadalno 22 maalin oo fasax aan la siiyay dawladda ee ganacsiga dhan macnaa naga xiran shaqooyinkii hadda maanta on kaliya 9 maalin bas xafad joogna aan saan u daalnay وقبرك سيارتك مال محاقب ستاري سيارتك مال والله ما شاء الله دين اسكب حسين وحشك ما شاء الله wax aan qabto oo maanta waa qabta aan dhigi karaniyo malaha in hurdo ka ahayn sagaalka maalin haddana waxaan filaa waxa ii hartay 12 maalin filaa inkastoo ay taageeraheena marka naga sugayeen challenge cusub iyo video cusub aan soo gelinin taasna waa niga la gelinaynaa horna waa nagu sheegay anaga wax nagu nahay anaga wax nagu tihin laakiin waxa balanaa in challenge cusub iyo video cusub hadda kadib aan channelka soo gelin doono insha Allah ay saaxib maxaabada asxaabtayda sagaalka maalin waxa qabtaan ku sheey rabaa shan habeen waa dhafray afar habeen waa hurdo maalinka soo harayna sagaalka maalinna ayada shanna waa hurday afarna waa soo jooda ayadana waa kala bedela marka baraada shaqada in loo furaan aan rajaynayna shaqada waa la iska fahmay marka lockdown kan ilaaha naga qaado cudurka ilaaha naga dul qabto Soomaaliya ma rajayto cudurka ilaaha ka badbaadiyo cudurka ilaaha naga qabto inta ku dhaca Allah ka caafiyo inta isku dhicina Allah ka badbaadiyo amiin ayaa wada leenahay inta ku dhimatay jannada Allah ka waraabiyo intii la xanuunsanna Allah caafimaad buuxo oo taam Allah siiyo horena waan igu sheegay fiidiyoodii hore aan soo fasaxnay Soomaali kastoo ay war maqleen laakiin isku day inaad war maqashaan oo waxay dawladda fartay aan raacdaan stay home aan ilahay macnaheedu tahay in xaafadaha joogtaan oo aad is ilaalisaan waayo Soomaalidan waxaan jecelnahay in qofka la salaamo oo had la isiyo oo kubad la dheelo oo macnaheedu taas ma soconayso cudurkan waa u jeedin maadaama hadda wadankeena ilaaha naga qabto haddii maanta cudurka wadan uu ku dhaco wadankeena wax ugu xun ma laha waxaan ku diinaa marka aad wadan shan joogna moogta marka aad lockdown leeyahay xaafadaha la joogay sharci baa jira moogta haddii banaankaas lagu arko gaari wata ama loo socdo lagu arko xarig waa marka aad Muqdisho ama Soomaaliya marka la lockdown ayaa ilaalinaa wadanka mid kale xaafadda lagu joogaa waa leeda iyo la isku arkaado iyo meel kasta wallahi ni horta beenta ma marka wadamo qurbo joogtid ama wadamo sharci leedahay ka jira laakiin anaga saas Soomaali u nahay hadda Muqdisho gal maanta haddii la dhaho lockdown jirto yani bandow ayaa wax laga wada lockdown lagu dheeli marka saafutay oo xeebta alaadi darada hadda waxaan arkay video aan daawanayay waxa la dugsiga quraanka hala xir iskoolada hala xir dugsiyaad xirtay oo iskoolada xirtay banaanka la isku waxa la dhahay ma arkin meelaha shaah lagu caawiyo maqaayadaha la isku iman karo waxaa arkay dadkii dhalinyaradii iyo asxaabtii oo badda dabaalaya soo badda soo badna meel dadka bulshada isku imaado waa fududayaan asxaabna la isku tago waxaad ku dadaashay inaad is ilaalisin oo aad is xakameysaan qalaad is xakamin kartid caafimaadka dhanka allo ku jira laakiin waxaa la rabaa inaad dadaashiin ilaahay wuxuu ku dhahay dadaal garabkaaga taagana marka maasha Allah hadda cudurku waa u jeedin marka hore halisu ilaaha naga qabto ka duceysan ilaaha naga qabto marka hore ujeed inuu wadanka China ka bilaabo haddana wadamada ugu xun oo dhimashada iyo halaad ku dhaca waa wadanka Talyaaniga Spain UK waxa waaye Mareykanka marka maasha Allah intii Soomaali ku dhimatay horaan noo sheegnay qabli waxa Allah ugu dhigay jannada Allah ka waraabiyo intii la xanuunsan caafimaad ayaan ilaah ugu baryeynaa
intii hartana caafimaad qabtana waxaa weeye inay guryaha isku celiyaan oo caafimaadkooda ogaadaan oo ma aragtin ay isxakameeyaan maadaama ay soomaalida lockdown ay maaka yeelaynin hata waxaan darada arkay video kale aan daawanayay soomaalida joogta Nairobi Kenya isbii qof yaqaano waxaa la lockdown waxaa la xiraa meel walba waxaa argay maamooyin dhahay waxaas ana iguma soconayaan boorsadeeda wato shaqadeeda dukaanka furnaya leedahay wadanka adiga ma lihi loo xiraayo ayada waa cudur qofka loo xiraayo inay badbaado ganacsiga dhow ay u socoto in waxaan ay meel ka dhamaanayaan waa kan ayada waa marka Soomaaliya in wax la isku maqlo halisku day in wax la isku maqlo halisku day Soomaaliya aad maanta waxaa waaye sida hor noo sheegnay challenge cusub oo aad hore u arkin waa soo socda insha Allah aniga saaxiibka Warwaa kanaalkan Warwaa insha Allah challenge cusub oo weligeen arag meel kale ka daawan waa ka dhigi doontaa videogan haddaad aragtid si video dambe challenge cusub challenge soo wadno dhiirigelin noo baahan tahay oo ana u baahan tahay challenge anaga wixii fariimo challenge hadda adiga cusub hadda haysid fariimaha noo soo qortay commentiga oo ku soo deenina like share comment subscribe ku hilmaamin waa walaalkaaga wax lacagtaaga ma baxayso in anaga wax nuuma anaga wax ma ka nugu tihiin haddaad saartid dhiirigelin noo tahay haddaad like dhahay dhiirigelin noo tahay haddaad subscribe dhahay dhiirigelin noo tahay haddaad commentiga aad soo qortaan aad fariimo noo raatidni waxaa dhiirigelin ayadana noo tahay maalin walba video cusub oo ma xiiso geliyo aniga ma xiiso geliyo insha Allah ay soo gelin doonaa channelkan haddii soo gaaray subscribe si saar asxaabta la sii wadaag asxaabta u sii gudbi insha Allah waxaad jeceshiin lamaan wax kale ma soo dhigayna anaga haddaad fikrado kale aad noo haysiin channeltiga noo soo qora haddana guntiida iyo gabagabada la maraa saaxiibkayga wuxuu ka dhigay laasana taageeraheena anaga maanta anaga wax challenge cusub ma wadno just waan soo salaameynay Allah idin barakeeyo waa sharfantihiin salaan kali laab salaan boqortooyo salaan cid kale aan la siin baa idin wadnaa waxa aan ka rabnaa bas dhiirigelinta bas inaad nasiisaan 21daas bari waxaan ka rajeynaynaa insha Allah wadanka waxa la yiri 21 bari hadii intaas cudurka sii kaco 3 months xaafadda la joogaya baa la yiri marka 3 months di xaafadda la joogana markaas challenge cusub ka dhigaysan insha Allah banaanka ku soo jirnaa laamiga cidlo waa laamiyaasha tagayna marka laamiyaasha toos ugu soo jirnaa insha Allah waayidaha iyo waxa la xad baahantiin ma sha Allah waayo soo wadna oo challenge cusub soo wadna oo hadda 21 maalin soo saaxiibkayga inaan ku sheegay 21 maalin hadda waxaan ugu dhiman 12 hadii oo ay wax kala soo baxan dawladda nolol soo socodsiiso waxaa waaye waxaad saan maqlaynay madaxweynaha waa lagu sii daraa haddii lagu sii darana anagana faa'iido noo tahay inagana faa'iido noo tahay challenge cusub ayaan soo gelinay kanaalka riwaayadooyin haddana waxaan u soo foodlay Ramadaan maasha Allah intii ka dhimanna Ramadaanka maalmaha ka dhimanna ilaahay nabad iyo bashbash iyo barwaaqo hanuugaas Ramadaankana waxyaalo badan oo ka hadlayo Ramadaanka waxyaalo ku saabsan iyo salaada iyo diinta ayaa soo gelin doonaa insha Allah asxaab badanna meesha waad ku arki doontiin asbaran doontiin maasha Allah hadda ninka waa saaxiibkayga waa walaalkayga ana waa walaalkayga maasha Allah marka waxaan leeyahay subscribe saara channelka like ka hilmaamin share na commentiga noo rabixay fariimaha السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما أنت درعنا بدبرتين بري مدح وشكح بعدين لمن وعقلا إني من عبد الله جاب بعدين لمن وعنصورنا وعنصورنا إن شاء الله مدح وش عنصورنا علسو نينك تقانين معها نينك لا أفريقيا جرو ماشي نيس عن جبنو عن يرسو هذا إنه وصوف أفريقيا كونفور أفريقيا تقانين إنك وقيب كمية أفريقيا لكن قربها وحبوها ما كانت ما شاء الله وحصورنا ضد علسنا عشان صورنا سوديسا صورنا والتخفيفنا صورنا دوفينا صورنا وعن صورنا نينك صوماليدا صوت أفريقيا بل يرضى أوقعنا صورنا ما شاء الله واحدنا أنت تكون كدولتين حتى نجاتيسي wax walba ay ula socdaan challenge soo sawirna oo challenge cusub oo xisib geliyo oo farxad geliyo oo madadaalo oo nin noqdo oo hadii caajis ku hayo hadii qandha ku hayso hadii yaani hadii hurdo soo kacay aad ku farxadido ku qasashido hadii ilaahay yiraahdo hadii ilaahay assalaamu alaykum wa rahmatullahi
kuwa